أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وتعالى وبركاته. وأنا والسلام بالشدة صوماليات ملكستو الدنيا دافية كشوكتان كسر دوادة وقلبتي في حرنتي سمعالة كندا وحن عاور ربينا إنجر أو باقة أو مالمها قد مسا برا برشلو كصوبتين كهالو إنت أن أقول الجلين إنتاس وحن ربا إن دلوقتي جيستين هاستن يا كشري حرام تجتان حجاجي يا كشري حرام بندر حبيبي حسوستي كلامي بندر حبيبي حسوستي كلامي تجتان حجاجي يا كشري حرام تجتان حجاجي يا كشري حرام محا لا يبحريا حكي لا يغريا إلا يحقنيا والله يحنيبيا محا لا يبحريا حكي لا يغريا إلا يحنيبيا والله يحقنيا dadku xoolo maahe xerahalkoodeen dadku xoolo maahe. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل شيء عادي أدود ما سنتين كارهان برشة نقل صعوتها برها برشة فيسبوك عادي أدود ما سنتين كسر هذا والمقلصان كاسوها الله داية فنان كيني داديرا إن معن هلاع waxau yiri dadku xoolo maaha oo aad xero ku xirateen waan ogsoonay dadku xoolo maaha dadku madax banaan yihiin bilaadan baan nahay ilaahay wuxuu nisiiyay lixlixaad ayuu noo dhinaysiiyay inta heesataba indho aan wax ku aragno dhego aan wax ku maqalno af aan ku hadalno qof kasto bilaadmiya inta heesto iyo maskax wax ku garto iyo qalbi haga intuu qof kasto bilaaadmiya intaa haysto waxa uu xaq u leeyahay inuu hadlo uu ka dhiidhiyo wixii xumaanta ah ee naftiisa iyo bulshada uu la degan yahay iyo bulshada Soomaaliyeed iyo gaar ahaan muslimka oo dhan ah inuu qof kasta ka dhiidhiyo uu diido wax kasto xumaana taasi waa xaq wana waajib ku saaran qof kasto bilaaadmi waa waajibna saaran waxaan ogsoonahay sida hore u sheegnay baraha bulshada waxa ku batay maalmahan dhaweytole نمان هلاع أول الربع إلا حرام لما حدين الحمد لله ونول يهاي كي دينيو كي دونيو وحوشوغا مقالة ديسا وكل الشيء أيودح شوغا يسوغو نول الحمد لله لما نحريو لما نتابن كريو تامر هيك قدبو وام حي صوابتك انتي ان نمعان لور ربع الحرام وحويان نمعان وحا وديدي وكديديي waxaan aqliga galin oo dadka ka iibsamay waayo qof kasto bilaadmi ilaahay raayibuna siiyay ma aha inaad u hogaansanaatid maamul beeleed amba maleeshiyo rabta dadka inuu loo dhaqanto si xun oo u cagajuglaysa u jaalabutaysa waxaas wax iibsamaya maaha waxaana u mahad celinayaa bulshada reer awdal gaar ahaan magaalada Boorame xaafadda Xaasleyda oo runtii kacday oo ka dhidhisay oo diiday إننا وحاس دعي كرين وحنا آدي أدو ما سنتين وانا سلوت وانا سلاني وانا نيسو بشاريني هرنا ونيو بشاريني مكرا ونيو بشارينا إلهي جيسيو نيجي سلاس كوالا حافظة بدن أهير أوضلنا أما قبل كأوضلنا وانا كديدان قفكم مركو فناي هاي أما أو يهاي رول موديل مالكستا أيو تيكرا وانفهمي كرا مامل كارجيسا وحكو doodaan amba ay ku dacwiyaan waxa weeyaan qofku maadaama uu qof role model waxbuu bedeli karaa maxaa la bedelaya waxa la bedelaya baas muxuu yahay madiinba dadka waxa la leeyahay loo sheegin wixii runtii jirta yaa xaqiiqda laga hadlin dadku haynda laadaan hadhiga laadaan ha aflaadaan oo afkuguna xidhnaado waayo xaq uma lihidina wax qortid hadad gobolada waqooyi galbeed joogtid bari amba galbeed xaq uma lihidina hadashid oo sheegtid wax xaq uma lihid xitaa inaad eegtid wax khalada
waayo markhaatibaad tahay markaa arkayay waan ognahay dad badan bay dhibaatadaas haysataa horaan u sheegay horena waan uga hadalnay intaasna waan kasoo hadlanay waxaani waa wax process dheer soo socda maanta tan nimcaan ku dhacday tu ka daran baa dadka hore kusoo dhacday lala rabo in lala beegsamo kuwa ka darana way iman doonaan laakiin waxaan rabaa inaan ii sheego ceebtii ugu weyneed ayaa dhacday oo maamulka Hargeysa sameeyey marka waxa cad in dadkani in meeshani inay dawlad ahayn amba ay ahayn wax jira waxa cadeynaya wax weeyaan habkii dawladnimo amba procedure-kii amba dastuurkii gacan ku rimiskii ay sameysteen ayana u hogaansanayn taasi maxaa keenaya waxa keenaya waxyaalaha ay ku talaabo qaadayaan ayna iska tala qaadanayn ayna iska cod qaadanayn ayna iska amar qaadanayn ay sameynayaan waayo waa haddii aan ahay beesha dhexe waxaan yeeli karaa wax kasta oo rabo waa waxay shalay tole ku diidanaayeen dawladdii kacaanka xageed ku aragteen adduunka may kama dhacdo nin booliisa amba taliyo booliis oo military xidhaa wax adduunka ka dhacday ma jirto mana dhici karto waayo militarigu waxay leeyihiin xeer gooniya procedure gooniya hab gooniya oo la mariyo iyo maxkamad gooniya oo la hortaago maxaa lagu xidhay ninka militariga waxa lagu xidhay waxa weeyaan waa nimcaan aabihii waxa uu rabay buuqii iyo rabshadii meesha ka dhacday maalintaas mudaharaadku bilaamay ay bisha 14-16 dhalinyaradu soo baxday ayaa waxa bilaamay rabshadaasoo la rabay in lagaga hortago maleeshiyada meesha timid maleeshiyadu waxay samaysay rasaastay riday duhurkii waxay joojiyeen 5 barkii maqribkii ka hor waa maxay dadka tooganayaan waa maxay waxay rabshada waxaas u sameynayaan waxa weeyaan waa garanka maanta xiranahay nimcaan kubaddu ciyaarayay ayuu la tagay isagoo dharka Soomaaliya xiran waa dharkaas waxa la isku xidhayo ilaahay bay naga dhaliyay diidi kari mayno Soomaali baan nahay Soomaali ka sokow calankana wada dugsanaa calanka ka sokow isku diib baan isku af baan meelna lama kala tagayo markaas waxa weeyaan waxyaalaha fara badan ee dhibka jira haddii uu nimcaan maanta waxaan ku dhaaranayaa hadduu nimcaan maanta uu yahay nin ka soo jeeda beesha dhexe inaanan lala beegsadeen waxaasna ay jirteen waayo siyaasiyiintoodii baan arkanaa waxgaradkoodii baan arkanaa maalqabanayaashoodii baan arkanaa oo xaq u leh inay tagaan muqdisho oo caasimad dalka Soomaaliyeed kana yimaadaan iyagoo madax banaan xildhibaanadoodii baa tegaya kana soo laabanaya oo wax dhiba yacaga jugleyna oo buuqiya iyo rabshada la kulmeen laakiin waxaan mahad celinayaa aan dadka u sheegayaa nimcaan waa nin raga oo ilaahay geesi ka dhigay oo geesi ka dhashay oo raga waayo waa loo xiniya taabtay waxa uu cadeeyay inuu gobolkiisa iman karo xornimo ku iman karo gobolkiisa xornimona lagu soo dhaweyn karo si farxadan lagu soo dhaweyn karo una dhex joogi karo si farxadan uga bixi karo waxaan ogeyn dad badan waxay ka maqnaayeen baraha bulshada waxaan ogeyn baraha bulshada in lagu qorayay nimcaan oo Djibouti jooga amba jooga Kenya jooga amba Muqdisho jooga in la yiraahdo ma iman kartid gobolka Awdal ma iman kartid magaalada Hargeysa ma iman kartid waxan war dadku wada Soomaali dadku wada dhasheen waa ehel way isqabaan waa abtiyaal wax kasta isku yihiin meelna lama kala tagayo laakiin waxa dadka aan u sheegayaan baraarujinaya inay diidaan beenta gacan ku rimiska ah ee maamulka Hargeysa iyo ka dhidhiyaan maleeshiyada dadka usoo afduubanaysa ee guryaha ugu imanaysa haddii taasi laga dhidhiyo waxay noqonaysaa waxaan jirin dadkana waa inaan baraarujino markastana waa inaan xaq u sheegno ilaahay baa activist naga dhigay ilaahay baa na tusay aqlina siiyey indhaan wax ku aragno iyo af aan ku hadalno na siiyey intaa aan noolnahayna waxaan dadka u sheegaynaa runta mana diidano wixii khaladana inaan dadka hor joogsano gaar ahaan waxaan u hambalyeynaya dhalinyarada reer Awdal horena waan ila hadlay haddana waan ila hadlayaa markasta toosa xaqa u foojignaada iska diida wixii dib ah ee dadkiina iyo dhulkiina iyo deegaankiina lagu samaynayo diida waa iga waano diida ininka ayaa ah dadkii ilaahay ka soko dhulkan laga xisaabtamay ilaahay ka soko ininka xaq u leh ilaahay ka soko ininka la weydiinaya amba macdan la boobayo amba dhul la boobayo amba dad loo caga jukuleynay amba wax kastoo la sameynayo dhalinyarada reer Awdalow ininka la weydiinaya waxaad xaq u leeyihiin inaad dalkiina difaacdiin dadkiina difaacdiin diintiina difaacdiin ilaahay ka soo dhulkeena kan laga xisaabtamaya nin iniga dhashay amba iniga soo jeeda oo loo caga jugleeyeen jirin
caloosho shaqaystayaasha maleeshiyada la shaqaysata ee gobolka awdal joogta ee siyaasiyiin isku sheegayana waan ognahay hunguri bay ka hadlaan iska diida waxaad xaq u leedihiin oo ka fiican ayaad heli kartiin iska diida maamulka Hargeysa inay ogoshahay inaad xidhan kartid dareyska ciyaartooyga Manchester amba Chelsea amba Bayern jarmalka inaad kooxaha kale dharkooda xidhan kartid garankooda amba suwaalkooda aad ku ciyaari kartid waxaad rabtid laakiin aad xidhan karin dharka Soomaalida oo ku sawiran yahay amba uu ka samaysan yahay calankeena suban kalarkiisu waayo waxaas wax weeyaan cuqdad calool xumo lagu beerayo ummadda waa nabar boog ah oo u baahan in la dhayo nabarkaasna waxa bedeli karaa dadka ilaahay aqli siiyay ee aragti siiyay ee ilaahay indha siiyay oo dhaga wax ku maqlaan siiyay oo af ay ku hadlaan siiyay ee waxba ka heebsaneen ee wixii khaladka sheegaya waajib ayaa ka saaran inaad jaarkaaga ama meel kasta oo lagu xadgudbayo inaad activist ka noqotid oo wixii khaladka sheegtid dadkan waxaas lagu haystaa qof kasta oo raba oo gobolada waqooyi galbeed degan amba bariga haato amba galbeed haato amba meesha doonta haatee uu qofku yiraahdo war waxani waa xaaraan waxa bilaamasa in lagu cagajuglayo waxa bilaamasa in lagu handido waxa bilaamasa in lagu hanjabo waxa bilaamasa in la raasado jid amba dow lagu soo maro oo lagu oodo dambiil laga dhigo oo dambi lagu dhigo oo meesha Soomaaliland leeyahay meel ay beel leedahay ma waa meel ummad wada degan tahay ummadii ay deganina isku afgaran weyday nin kasta oo meeshiisa ayaa u dana inuu aayihiisa iyo noloshiisa iyo deegaankiisa ka tashado dadka waxa tusanaa in meeshan tahay meel xaaraana oo dadka xuquuqdoodii loo diidan yahay dadka la caburinayo loo jaala butaynayo loo hanjabayo inta sadoona guryahooda lagu galo wixii doon laga yeelayo uma adkaysan karano waa in dadku kacaan gaar ahaan dadka waxaan la hadlayaa dhalinyarada horaan waxaan niga sheegnay horaan niga digay dhalinyarada gobolka awdal degan 5 sano waxaan ka soo hadlanay amba qoraalahan sameeyno oo haqeeliyaan oo beesha dhexe waxaan naga joojiyay hay raadaan maanta waxaan rabnaa hadaba inaan wixii shaaca ka qaadno inaan human rights u sheegano oo loo doodayo xuquuqisaanka haddaan activist ahay iyo inta ila midaba inaan arinka galano soo ugu dhaqso badan galano oo arinkaasi uu noqonayo mid laga dhabeeyo marka dad iyagu administration garaneyn dawladnimadu waxay tahay garaneyn kala dambeynta garaneyn ogeyn inuu hadii uu xitaa wax ku kacayo inuu amar inuu bixin karo uu heli karo permanent waxan inuu fulin karaa waayo waxaan ogsoonahay maalintii lagu kacayay arinkan aba ay rabeen in nimcaan qabtaan ay waayeen ee magaalada buuq galiyeen ee gabar yar oo masaakiin daaw ay dileen ee dad daawaceen ay caruur ku tunteen waxaan ogsoonahay inayna ka heesan permanent magaalada laga xukumo ee maleeshiyada Hargeysa fadhido kama heesan haba yaraatee wax permanentiya ilaahay baa inagu dhaarshay dhalinyarada reer awdalo waxaas maxaqba inaad waxaan haduu qofku haduu dhimanayo dhareerku iska duwa haduu qofka bini'aadamku dhimanayo xitaa dhareerku iska duwa tani tulo adkaysan kara maaha waa inaad ka dhididin oo diidin wax ay sameyn karaan ma jirto tani maanta yadii baa haysato baaba'aysa yadii baa beelbeel isku haysta beeshii dhexe waxaan u baahanahay inaan kubadda dhexda u dhigno oo sidoo waafufno marka toosa dantiina ku toosa dadkani dad garanaya maaha xeer dawladeed iyo hab dawladeed iyo administration dawladeed u shaqeeyo intuba ma jirto xaqaas haddaba fanaan weeyaan nimcaan fanaanku xad ma laha waxa uu xaq u leeyahay uu xorriyad u leeyahay meel kasta oo fankiisa laga dhageysto inuu tagi karo dhulka Soomaaliyeed amba dhulalka ajnabiga ee Soomaaliya ku nooshahay qurbaha haato wadamada kala haato Suudaan haato South Africa haato meel kasta ay joogaan dadka jecel heesiisa xiiseeya amba fankiisa xiiseeya waxa uu xaq u leeyahay inuu tago oo ka soo farxiyo oo heeso fanaanku qabiil maaha fanaanku uu ka weyn yahay nin qaran fanaanku uu ka weyn yahay nin lagu tilmaamo maamul goboleed iyo reer iyo meel iyo xaafad lagu riixo intaas buu ka weyn yahay maanta waxa keentay in dharka la isku xiro nimcaan waxa keenay in dharka lagu hanjabo waxa timid in dharkaasi
wax aan dhici karin magaalada lagu sameeyo oo dhaawac iyo cagajugleen iyo dhibaato ka dhacdo laakiin waqtigu isbedeli doonaa waa la iska daba iman doonaa waana la xisaabtami doonaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waan salaamay bulsho waan salaamay dadka bulshada baraha Facebook ku jirta ee caytamasa aflacaayo leeyahay inii jawaabi maayo waxaan ogsoonahay laakiin mid baan rabaa inaan yara sheego intaa caytamasa ee Facebook igala socotaba waa beesha dhexe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waan salaamay